الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. إن شاء الله ولا ليال سيدين ودلوا سعني وحين سووني دروستي وحويا كصاب سنيد وحويا سحرك، وحين إن شاء الله ما أنت على كقعدان دونا حلقتي وحويا أفراد أما قيبت أفراد كمدا وحويا سحرك، وحين كسر هذا الله سجنان سحرك إلهي سبحانه وتعالى والسجي يا النبي عليه الصلاة والسلام يا قواش علماء وحكمده أي نسوق قعدني إن شاء الله ولا ليال ما أنت وحين حلقتي إنكم يجي دورنا سحروليالka in badan eray bixintii duruustii hore waxa ku jiray waxa weeyaan sixroolaha iyo shaydaanka inay ka dhaxeeyaan waxa weeyaan cilaaqaad iyo xiriir. marka maanta waxaanu halkan ka bilaabi doonaa balqaababka waxa weeyaan ay shayaadiinta ay ugu yeedhaan ay u soo xaadiriyaan, marka waxa weeyaan ay u yeedhayaan sidee dariiqo ayaynu insha Allah soo qaadan doonaa. maanta waxaanu halkan ku qaadan doonaa dariiqada koobaad ee waxa weeyaan ay ugu yeedhaan waxa weeyaan dariiqada shayaadiinta ay ku soo xaadiriyaan. dariiqada koobaad waxa la yiraahdaa dariiqatul iqsaam, waa dariiqo uu ku dhaaranayo ninka sixroolaha ah jinka soo ka dalbaya waxa weeyaan awood. wuxuu sameeyaa ninka sixroolaha sixrooluhu wuxuu sameeyaa yadkhulu saahiru fi ghurfatin mudlima, waxa uu galayaa qol madow oo wax layra ama wax nala ama wax iftiin aan lahayn. ثم يوقد نارا تبتنا دب يربو شديا ويضع على النار نوعا من البخور وحا كرديا دبكا waxa weeyaan uu shiday waxyaabaha urta bixiya ee uu isticmaalo wax kamid ah buu ku ridaya, taasoo waxa weeyaan waafaqsan arrinta markan meesha miiska u saaran uu sameeyo. marka waxa weeyaan tusaale ahaan soo qaadano marka uu doonayo inuu kala geeyo laba qof oo nin iyo xaaskii uu kala kaxeeyo, ama laba qof oo cadaawad uu dhex dhigo iyo waxyaabaha la midka ah. yadaw ala an-naari bukhuran daa raa'ihatin kariha, wuxuu dabka ku ridayaa waxa weeyaan shay urqar muulib ku ridaya dabka oo aad waxa weeyaan urtiisa loo dhibsanayo ayuu dabka ku ridaya. marka uu rabo inuu cid kala kaxeeyo ama uu cid isku diro ama uu cid isu arageliyo, dabkii uu qolka yar madow uu ku shiday baa wuxuu ku ridayaa waxa weeyaan shay urtiisa aad ay u qarmuuntahay. dhinaca kale marka uu rabo marka waxa weeyaan uu doonayo inuu laba qof uu isjeclaysiiyo, ama nin waxa weeyaan hore xaaskiisa sixir looga xidhay uu rabo inuu ka furo, ama uu rabo inuu sixir ku daweeyo, waxa uu sameeyaa yadacu bukhuran daa raa'ihatin tayyiba, dabkii wuxuu ku ridayaa waxa weeyaan wax udgoon leh. hadiye jeer waxay isticmaalaan marka ay hawshan oo kale ay qabanayaan qaybtan dambe ee marka waxa weeyaan laba qof ay isjeclaysiinayaan ama qof waxa weeyaan sixir ay ka daweynayaan ama waxa weeyaan ay nin xaaskiisa laga xiray ay rabaan inay sixir ku daweeyaan, cadar furcase loo yaqaano ayay aad u isticmaalaan. ثم يبدأ الساحر وحو بلابا كي ساحرك أها مركو انتا سمية دبكا وشده بخور كان وكريدو في تلاوة إنو أخريو أذمته الشركية وحويا كلمات شركي وإلهي اللوغا قالوا بيو وشيطان لقوم معين بضيو أيو حويا أخريا، وهي الطلاسم وي معينة تحتوي على إقسام الجن بسيدهم، تاسو حويا معنيه يدؤون نقونيو إنو حويا كرارانيو جنك madaxweynaha jinka ama boqorka jinku inuu wuxuu qabto oo hawshan uu rabo uu gacan ka siiyo ayuu ku dhaaranaya jinkii uu weyneynaya. وسؤالهم وحبوا ويديسانيا وحي uu rabeen loo qabto bi'aadimihim ka ugu weyn
كما تتضمن أنواعا من الشرك الأخرى هل كان وحا كقرصون نوعية بدن الشرك كاملة كتعظيم كبراء الجن إن لوينيو وحويا جنك كود وين لوينيو لسي وينيو والاستغاثة بهم ين لغا غرغار دلبا وغير ذلك ضمان وحا صدم والشرك إلهي سبحانه وتعالى لوغا غالوبيو وإلهي لوغا فوغانيو شيطان وحويا معين iyo gacan iyo garab laga bidayo marka uu waxyaabahan sameeynayo waxa shardiya بشرط أن يكون الساحر عليه لعنة الله غير ظاهر سين هربا tilmaanay xalqad hore aynu ku soo ishaarnay ninka sixirooraha markuu hawlahan uu galayo ee dariiqadan waliba uu ku sii dhex jiro waxa shardiya inuu bilaa dahaaraya imma junuban inuu jinaabo qabo سين هربا وصو tilmaanay uu jinaabada aanu iska maydhin aw murtadiyan li thawb najisin ama wuxuu gashanaya xidhanaya maro aad u nijaasaysan وبعد ما ينتهي من تلاوة العزيمة marka uu dhameeyo kalimaadkii gaalnimada uu ku hadlayay يظهر أمامه شيء على هيئة الكلب waxa uu muuqanaya uu arkaya markuu kalimaadka gaalnimada uu ku dhawaaqo شيء صورة وحوين إيله أو ثعبان أما مس أو كلاله أو هيئة أخرى أما وحويان مدبك له هي صورة ذكله فيأمره الساحر كيسحر الله وحو أمر يا شيء أويمي بما يريد وحو دوني وأحيانا لا يظهر له شيء مرك قارنا وحبه ماركو وإنما يسمع صوتا وحو مغلى يعد وأحيانا لا يسمع صوتا مرك قارنا عضبا من مغلى وإنما يعقد على أثر وحو وحكحرا راد أما آثار أما وحويا وحيابا قف كان وحو سمينيا لغا كيني وديدت كيس او كبخاي ايو وحويا وحكو سمينيا sida timihiisa oo kale ama marihiisa wax kamida oo waliba ku dhididkiisa uu taabtay thumma ya'muru al-jinniya bima yurid markaas wuxuu amraya jinkii wixii uu doonay dariiqadan walaalayaal markan kor istaagno waxa inoo muuqanaya afar arimood oo runtii aad iyo aad waxa weeyaan u khatara qofka diintiisa iyo islaamnimadiisana waxa weeyaan wax weyn u dhimaya takoobaad waxa weey al-jinnu tufaddilu al-ghurfata al-mudlima jinku inuu jecel yahay jinku inuu waxa weeyaan uu jecel yahay meelaha madmadow arinta labaad الجن تتغذى على رائحة البخور وحين ogaanayna jinku inuu quuto oo uu cuno wax weeyaan bukhurka wax kamida waxyaabahan uu sameeyay iyagu ku sabaaraya waxa weeyaan ugu madax buuxinaya allati lam yadhkar isma Allah alayha ilaahina magaciisa aan lagu xusin طريقه saddexaad min ash-shirk adh-dhahir was-sarih shirkiga cad ee inoo muuqda waxa uu yahay fi hadhihi at-tariiqa ku jira al-iqsam bil-jinn jinka waxa weeyaan lagu dhaarto oo la weyneeyo والاستغاثة بهم إن لقى كلمة ضلبة إلهي عدان هين إن لقى كلمة اللي ويديستو وحويا مبنا أنا وانا الشرك وي إلهي بلوغا قالوا بيا وحين كلوا قالنا أرنت أفراد الجن تفضل النجاسة والشياطين تتقرب من الانجاس شنكو وحويا إني تعليهين ميلها النجاسة أنا كأقدوين ميلها وحويا نجاسة مركا ولا ليالدتك سحرات يرنتي ودد آدو ليته oo waxa weeyaan ihaanaysan oo waxa weeyaan dhibaataysan oo aad iyo aad waxa weeyaan wax qiran weeyaan waxyaabaha aadka u foosho xun ay waxa weeyaan ku dhaqmayaan insha Allah waxa weeyaan waxaan in badan qaawin doonaa oo aan dibageli doonaa ceebahooda iyo waxyaabaha waxa weeyaan ay sameeyaan insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala baad maaragtay horaba waxa weeyaan u ceebeeyay mar walba waa ceebaysan yihiin marka insha Allah qaybta afraadna insha Allah intaasaan ku soo gabagabeynaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيبها الضنبائية إن شاء الله ينوكلنا